barnaamijkan maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa qaab dhismeedka siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Ireland. Haddaba Ireland qaab dhismeedkeega ama maabka ama khariidada Irishku waa kan marka laga reebo North Ireland. Habkan ayaa lagu soo doortaa baarlamaanka Irishka oo ka kooban asxaab siyaasadeed. Waana laba gole. Golaha kood waxaa la yidhaha Senate ama Ingiriisiga Senators. Waa golaha labaadna waxaa la yidhaha golaha wakiilada oo Dáil Éireann ay yidhaahdaan iyagu afka Irishka waana golaha wakiilada. Waa golaha halkaas la fadhiyo. Marka labada gole ayuu ka kooban yahay. Golaha Senate-ka waxaa lagu soo doortaa qaab ka duwan qaabka tooska ah ee dadku u codeeyaan. Waayo waxaa lagu soo doorto waa 60 xubnood waxaana 11 xubnood ka yimaadaan oo Taoiseach ama ra'iisul wasaaraha ay yiraahdaan 43na waxay ka yimaadaan laamaha dawladda. 6 xubnoodna waxay ka yimaadaan jaamacadaha labada jaamacadood ee ugu waaweyn dhalinyarada qalin jabisa ee graduate-ka ayaa soo doorta. Saas 60 xubnood ay ku fadhiistaan golahan la yiraahdo sanadka ama golaha odayaasha. Golahaasi waa gole awoodiisu yar tahay marka la eego awoodda baarlamaanka. Way xubnaha Dáil Éireann waxa weeyaan waa xubno iyagu golaha wakiiladu la soo doortay waana 158 xubnood ay ka kooban yihiin. Shantii sano marba ay doorashada ku yimaadaan. Waa shantii sanaba mar ayaa la soo doortaa 158 xubnood waxaana ka soo baxan 40 deegaan oo Ireland ka kooban. madaxweynaha 7 sano marba la soo doortaa waxaana imka madax ka ah Michael D. Higgins. habka lagu soo doortaa isaga laftigiisu hab doorasho toos maaha waa hab dadban laakiin sanadkan waxaa la filayaa 27 sanadka soo socda in madaxweynaha lagu soo toos ah. madaxweynuhu awoodiisu way yartahay waana koobanta waxaan ku sameeyay xafladaha iyo ceremonianka iyo waxyaalahaas oo kale ayuu ka qayb galo. marka madaxweynaha awoodiisu aad bay u kooban tahay oo awoodda kaliya uu leeyahay waxa weeyaan waa awoodda xagga marka baarlamaanku ansixiyaan golaha wakiiladu ay xeer ansixiyaan ayaa loo gudbiyaa xeerkaas uu eega madaxweynuhu haddii wax ka bedelayna wuxuu gudbiyaa maxkamadda sare. haddaba dhinacan haddaynu eegno Irishka doorashadiisu xildhibaan kastaaba isteed ku taga xildhibaan walba codadka kootada ayaa loo qoondeeyay inuu ku soo baxo waa 10,000 cod. saad arkaysaan kuwa independent waa 10,000 haddii ay ka yaraato waayo faa'iidada markaad independent tahay iyo marka aad xisbi ku jirto waa kala laba. waxa laga yaabaa marka aad independent tahay in kootada laga doonaya ay 10,000 noqoto haddii ka yaraato waxaan ku 10,000 waa dhacday. haddii ay ka badatana waxa ku soo hara adiga siin kara musharaxa kugu soo xiga ayaad ugu beerin kartaa. marka asxaabta siyaasadda qaar baa aad arkaysaa in 4,100 qof ay ku soo baxayaan qaar baa kaba sii yarba qaar baa laba kaba sii yarba. marka sidaad arkaysaan doorashada Irishka waxay kaga duwan doorashooyinka kale tusaale ahaan halka xildhibaan ee doorasho isku taaga baarlamaanka wuxuu sameeyaa deegaan kasta 3 qof baa loo gelin laga soo doorto. markaas 3 qof mid ka mid ah hadduu helo 10,000 wax ka badan wuxuu sii calaamadinayaa ka hor wuxuu sii calaamadinayaa 10,000 markuu gaaro ama cidda uu siin lahaa codka oo sharciyan loo ogol yahay. marka hadduu 15 gaaro qof buu sii calaamadinayaa uu leeyahay anigu kaasaan siinayaa oo ila aragtiya codadkayga. marka kaasay kaga duwan yihiin markaad aragto doorashooyinka kale ee caalamka laga qabto. asxaabta siyaasadda dalka ugu waaweyn waa Fine Gael oo xisbiga la yiraahdo iyo Fianna Fáil waa laba xisbi oo Irish ah oo afka Irishka magacadan waa afka Irish ay leeyihiin. marka labada xisbi waa labada xisbi aqlabiyadda dalkan imika kuraasta ugu badan. waayo xisbigan Fine Gael waa xisbiga imika talada haya xisbiga Fianna Fáilna waa xisbiga mucaaradka ee ku soo xiga. waana laba xisbi oo isku daystay xagga markaad aragto heshiis dhex maray ah in maadaama doorashadii 2016 xisbina aqlabiyad uu heli waayay xisbiga ugu xildhibaanada badan ayaa markaasi iyo xisbiga ku soo xiga oo labada xisbi ugu waaweyn oo xisbigana uu helay Fine Gael uu helay 50 xubnood baarlamaanka xisbigana helay 44 xubnood ayaa waxay ku heshiiyeen in dawladda Fine Gael ay soo dhisto dawlad minority ah. markay baarlamaanka 150 xubnood yimaadaan Fianna Fáil oo 44 xubnood leh way ka baxaan way ka maqnaadaan si aqlabiyadda si ay loo doorto Taoiseach ama ra'iisul wasaaraha. marka saas ayaa cod dheeri loogu doortaa Fine Gael. marka cod dheeridaas ay ku soo baxdaa iyadoo ay taageerayaan ilaa 9 xubnood oo ah xildhibaanada madaxa banaan ee independent ka la yiraahdo.
marka saas ay doorashada dowlad 3 sano oo heshiis dhex maray labada xisbi ayaa keenay in ay muxuu ahaa ay doorashada 3 sano ay sii maamulaan dalka marka saas ay loogu bixiyay dowladda minority ama minority government saas ay dalku hogaaminay ilaa 2019 xagaaga dambe Sinn Féin xisbigan la yiraahdaa waa horta afarta xisbi weeyaan dalka ugu waaweyn Sinn Féin waxa weeyaan waa Irish waana xisbi weyn oo isagu aaminsan qadiyada guud ahaan jasiiradda oo dhan oo Northern Ireland ay ka mid tahay marka xisbigaasi oo kale isagu wuxuu ka duwan yahay labadan xisbi ee kale ee Fine Gael Fianna Fáil ee waaweyn wuxuu kaga duwan yahay xagga mabda ah oo isagu wuxuu aaminsan yahay in la isku daro jamhuuriyadda oo dhan Labourku waa xisbi 2011 xildhibaan lahaa maanta 7 xildhibaan buu la hoos buu dhacay marka afartan xisbi waxa kala hogaaminaya Fine Gael waxa hogaamiya imika ninka Hindiga la doortay oo la filayo in 13 July 13 June uu noqdo ra'iisul wasaaraha Ireland oo loo ansixiyo sida aanu arkayno warkana Fianna Fáil waxay ogolaatay heshiiskii ay gaareen in ra'iisul wasaaraha uu noqdo ninkan imika Hindigaahi markaa baarlamaanka si dadban baa loo marinayaa 13 bishan xisabta siyaasadda dalkani waxa kale oo Fianna Fáil hogaaminaya Martin Fine Gael xisbigan ka Leo Varadkar iyo Sinn Féin oo Jerry Adams soo taqaanaan oo caan ahaa iyo markaa waxaa jira xisbiyo independent ah markaa doorashadii 2016 Irishka dhacday wuxuu wax weyn ayuu ka bedelay muuqaalkii jamhuuriyadda markaad eegto siyaasadda imika jamhuuriyadda ay ku dhisan tahay oo ah minority government waayo dowladdan awood badan ma laha waayo awooddan heshiis labada xisbi ugu waaweyn bay ku dhisan tahay anytime bay dhici kartaa marka xisbigan mucaaridka ah ee ugu weyn la yiraahdo Fianna Fáil ayaa isagu ogolaaday in la sii wado ay xukunka dowladdan Fine Gael ay xukunka sii wado xilka ilaa inta laga gaarayo heshiiskooga 3 sano kadib ama imka 2 sano ka hadhay ilaa 19 bisha 2019 bisha labaad ama saddexaad leeda xigaaga markaas oo la filayo doorasho guud ay dalka ka dhacdo haddaynu dib ugu soo noqono qaab dhismeedka jamhuuriyadda Irishka golahooga dil ira waxa hogaamiya waxa imika aqlabiyadda ama kuraasta xisbiga ugu badan waa Fine Gael xisbigaas ayaa loo saadaalinayaa inuu ra'iisul wasaaraha markaas in makana ahaa ka bedelayana imika la filaya inuu noqdo xisbigaasi markaa isaga noqonaya ra'iisul wasaaraha waxa uu yaqaanaa Taoiseach oo afka Irishka marka Taoiseach markaa isaga soo dhisay dowladda saynu arkaynana dowladdaasi waxay noqonaysaa dowlad minority oo ilaa 2019 xilka sii haysa inta la gaariyo doorasho siday baarlamaanku u kala fadhiyaan haddaynu aragno shaxdan waad arkaysaan 44 seats ayaa ay Fianna Fáil leedahay oo 25 baa ku kordhay doorashada 2016 kuwana 49 seat bay leeyihiin 27 xubnood ay waayeen doorashadii 2016 marka inagoo taas sii qaadanayna haddana doorashada inkasta oo la filayo 2019 haddana waxaa jirta in Irishka maxaa abkeys ayaa ay labada xisbi ku heshiiyeen waan ognahay wadankan Ireland xagga siyaasadda waxa la isku hayay xagga water chargeska ama qiimaha lacagta biyaha lagu soo rogay taas ayaa ka mid ah heshiisyada ay gaareen Fine Gael oo ah in Fine Gael ay doonayso dadka lacag laga qaado xisbigan kale la yiraahdo Fianna Fáil la doonayay dadka lacag laga qaadin guuldarrada ugu weyn ee Fine Gael ay sababtay doorashadeedu waxay ku macneeyeen waxa ugu weyn ee ku macneeyeen warbaahinta Irishku inay ahayd waxa la yiraahdo biyaha ay lacagta ka dhigeen marka
guud ahaan habkaas ay u dhisan tahay sida irishku waan labada gole sanadka la yiraahdo iyo dil ay ka bilaabnaa sida irishku guriga baarlamaanka irishka ayaana fariistaan waxaana awood badan ma laha golaha sanadka golaha odayaashu ee 60 xubnood awoodoodu waxay ku kooban tahay uun just in ay waxyaalaha ay ka jeegareeyaan sharciyada ay ansixiyaan ee biilka ah ee ansixiyaan golaha wakiiladu ee dil ira la yiraahdaa kadibna ay dib ugu gudbiyaan golihii kadibna dib loo ansixiyo waxyaalaha noocaas oo kale ah ay qabtaan ama ishiyo kale oo baarlamaanka la soo dhigana way dib bay u faaqidaan marka awoodahood intaas ay ku kooban yihiin sanadka laakiin awoodda ugu badan waa golaha baarlamaanka ay iska leh ee dil ira la yiraahdo marka prime minister kuna waa halka soo baxo awoodda baarlamaanka ee executive kuna waxa wada baarlamaan muxuu ahaa golahaasi dil marka saan arkayno North Ireland kuma jirto doorasho muxuu ahaa doorashadan laakiin dadka haysta dhalashada Irishku way codeeyaan oo North Ireland way ka yimaada halkan bay ka codeeyaan way marka taasina faa'iido weyn bay u leedahay dadka Irishka dadka Northern Ireland